Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan maanta halkan ka bilaabi doonaa een, introduction of networking. Network baan ka bilaabi doonaa. Networking aad ayuu u muhiim yahay. Waxaan arkay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo iyakuna wada. Marka insha Allah anigana inaan ku biiraan damcay. Marka networking aan ka shaqeyn doonaa qeybo badan baa 3 boog baa jira oo 3da boogba mid kastaba 12 laab uu leeyahay. Marka waxaan sameyn doonaa 12 laab baan insha Allah mid kastaba ka sameyn doonaa haddii Alla ina karsiiyo. Anigoo laabkana cirif dhigi doona saan u malayn doono aan ciribna packet trace anagoo laabka laacayna insha Allah. Intaa waxa dheer shaashada arkaysaan waa shaashad waxaa la dhahaa Cisco Packet Tracer oo inoo fududeyn doonta saan u isticmaalno. Shaashadan inta badan waa waad soo download garanaysaa Google-kaad galaysaa ka waxaad ku qoraysaa Packet Tracer. Markaad Packet Tracer ku qortid Cisco waxaad ku qortaa Cisco Packet Tracer ama Cisco aad odhan kartaa. Markaad Cisco tiraahid wuxuu ku odhan doonaa login iyo email. Haddaadan email ku lahayn waxaa fiican akoon baad ka furan doontaa oo akoon markaad ka furatid emailkaagii hore ayaad siin kartaa oo baasaboor cusub ayaad samaysan kartaa. Dabeetana kaa markaad qaadatid waxaad tegi doontaa Google-kaad ku qori doontaa Cisco Packet Tracer. Markaad Cisco Packet Tracer tiraahid marka waad soo download garayn doontaa kana arkayna app-kan. Marka app-kan wuxuu ku fiican yahay device kasta oo maanta loo baahan yahay networking. Wixii oo dhan baa halkan ku jira. Laakiin haddaan suuqa tago soo iibsaysi lahaa kharash buu ku taagan yahay. Raasiinaska wax kale uu jiro marka wax fiican wixii aan kolba haysan inaan ka faa'iidaysano weeyaan. Halkan aan saan ku arkayno qaybtaas waa qaybtaas aan idin sheegay. Markaan aan hadhow tolo sameyno qaybahan saan isticmaali doonaa sida loo seefiyo, sida loo furo, sida maad garanaysaa marka qaarkood aan u ogaano haddaan tagno option tagno sida aan u ogaano oo dadkaan isticmaali doono. Kuwana waan isticmaali doonaa sida loo soo dhaweeyo, sida loo yareeyo, sida maad garanaysaa loo delete-iyo haddaad masaxayso oo kale, sida loo qaado haddaad wax ku qorayso oo kale, sida kalarka loo siiyo oo kale. Intaas weeyaan. Laakiin inta u muhiimsan waa intan hoose weeyaan. Intan hoose waxaa jirta is af inta intan qayb baa jirta. Inta inagu waxaan ka isticmaali doonaa kan ay dhahaan halkaa ay ku qoran tahay network devices. Network devices waxaa ka mid ah routerska ka mid ah oo kan hoostaad ku arkaysid weeyaan. Routerska inta badan waa kan internetka inoo keena qolada markay internetka ay qolada internetka inoo geliya. Kan bay xaafadaada keenaan kan bay ku xidhaan. Kanna marka adiga ayuu kuu soo gudbiyaa. Kan waa aad buu muhiim yahay. Kaan waxaa ka dambeeya kan kala jira oo ay dhahaan switch dhahaan. Switchku waxa u dhexeeya kombiyuutarada iyo kan buu u dhexeeya. Marka kan routerka oo kale wuxuu leeyahay saan ogahay hadda 2 port buu leeyahay. Laakiin de switchku wuxuu leeyahay 24 ports 24 port buu leeyahay oo aad gelin karta xadhkaaga 24 kombiyuutar ayaa qaybsan kara kan. Inkastoo maanta routerska qaarkood ay jiraanba oon poodad badan ku arkay oon markaan Google-ka raadinayay. Laakiin kan baa jiro isna hub la yidhaha kan oo wireless-kii ah. Marka aad ku dhufto mid kaste kan waa adiga arkaya kan markaan ku dhuftay routersada waxaa jira qoladan router la yidhaha waxaasoo dhan baa jira. Marka inta badan kan baan isticmaali doonaa. Kan wuxuu leeyahay 2 port waxa 43 2 port buu leeyahay iyo 2 serial port buu leeyahay. Waad ku gartaa serial-kana. Kaa markaan ka gudbo kan kalaa jira. Kan haddaan ku dhufto kan waxaa jirta switch baa la yidhaha. Switchka 2 qaybood baa jirta oo layer 2 yidhaahaan oo ah access switch. Marka inta badan kombiyuutarada ayaa kan lagu xidhaa. Laakiin ku kala jiro layer 3 yidhaahaan oo labada nooc weeyaan. Layer 3 waxa weeye kan buu ka sarreeyaa marka isagu poodad badan buu leeyahay. Weliba ah gigabit oo halkan uu leeyahay fast internet uu leeyahay. Fast internet kan laftiisa switchka ayaa maanta casri laga dhigay oo halku 24 bood ka lahaa. Hadda 48 bood buu leeyahay. Weliba qaarkood ay yihiin fast internet halku ahaa. Hadda qaarkood waxa weeye gigabit buu leeyahay. Marka kaasaan maanta isticmaali doonaa. Haye intaa waan ka hadalnay. Waxaa jira kan oo end devices waxaa lagu qoran tahay end device. End device waxa weeye waa halka u dambeysay host uu isticmaalo ama client qofku isticmaalo. Computer inakaa isticmaala, laptopka inakaa isticmaala, server inakaa isticmaala, printerkii baa jira, telefoonkii baa jira, voice over baa jira, waxaa jira TV-gaa jira, waxaa jira tablet-kaa jira, smartphone-kaa jira. All waxaasoo dhan baa jira. Kan inakaa isticmaala endpoints bay dhahaan. Hada English baad endpoints ku dhahaan. Waxaa jira kan baa jira component-gan inta badan isticmaalmi doono laakiin IoT waxay dhahaan internet of things baa jira halkan weeyaan waa laafi doona. Laakiin muhiimadda ee soo raacaya ee isku xidhi doona end device-ki iyo network devices waa halkan baa ka hilaaca. Haddaan kan hilaaca ku dhufto waa waayaradii aan isticmaali lahayn oo dhan. Intaa waayar baa jira
oo hadda siska packet tracer noo soo bandhigay. Kan waxaa jira kan automatically markaad isku xidhaysid hadaad kan ku dhufatid labada siyaabo waad isku xidhi kartaa. Laakiin haddaad kuwan kala dooratid adaa dooranaya portka ku xidhaysid. Haddaad doonaysid switchka oo kale wuxuu saa inii sheegay wuxuu leeyahay afar labaatan port ilaa 48 port. Haddaan doonayo inaan aan ku xidho 5 kan baan dooran karaa. Marka waan kolba casharka wixiga ayaan ka baran doonaa insha Allah. Kan baa jira oo intan kan waxa weeye waxa la copper straight bay dhahaan. Kan kale jiro dhahaan copper cross over baa jirta isna kan waa xarig kale isna. Waxaa jirta kan waa fiber optic weeyaan oo isaga pulse iyo xaas weeyaan. Laakiin labadan baan isticmaali doonaa kan dhahaan serial DCE iyo serial DTE. Marka kan clock baa jirta oo la raaciyo oo ku xiran. Waan kan waan isticmaali doonaa insha Allah hadii la rabo. Marka sida haddaan ognahay hadda waxaan samayn doonaa device-kan network device-ka ayaan wax ka qaadan doonaa. Markaan network device ku dhufto kuwan buu isoo dhigay kuwaasoo dhan. Kuwan markuu soo dhigay hadda kan waa kan halkan wala yaala. Laakiin kan baan qaadan doonaa. Kaasaan ku dhufan doonaa. Marka kan switchkan saan idin sheegay kan baan markaan u baahanahay maanta. Kaas laba qaybood baa jirta waa ku dul dhufan kartaa oo halkan baad ku dhufan kartaa. Ama waad kor baad u qaadi kartaa saad doonaysid. Hadda waan ku dhuftay markaa. Waxaa kaloo jirta kaa waan qaaday. Waxaa kaloo u baahanahay kan waa network device-kiisa waan qaaday. Waxaan u baahanahay end device oo kombiyuutaradii ah. Marka labadaasaan isku xidhi doonaa maanta. Kanna waan qaaday halkaasaan dhigay. Labadiiba kuwa labada siyaabo ay jirta aan samayn karo dhexda ay noo geyn karaa. Labada mid baan qaadi karaa ama labada marba waan qaadi karaa. Intaan sidaa u wala highlight garayo u wala saaro ayaa markaa labadu saa u qaadi karaa. Ka dhexda ay noo dhigay halkaa maanta. Marka inagoo halkaan joogno waxaan doonayaa kan waxa ku qoran switch 0 kan waxa ku qoran PC0 marka switchka magacaan ka bedeli doonaa. Markaad magaca ka bedelaysid halka ku dhufo. Markaad ku dhufatid xoogsiye saas ku siiye. Marka ka bedel magaca doontaad bixin kartaa. Hadda halkan waxaan u bixin doonaa Maxamed baan bixin. Maxamed baan bixin. Inta badan waxay dadku u bixiyaan S1 switch 1 switch 2 switch 3 baa loo bixiyaa. Hallow tal casharada soo socdaan ka hadli doonaa sidaas. Laakiin kanna PC magac baad u bixin kartaa ama PC waxaan u bixinaa matalan intaan calaamada raacino hyphenka ayaan capital A u bixin doonaa. Marka kan waxaan u bixinay DCA kan waxaan u bixinay Maxamed. Labadan hadda ma xiriirsana oo ma wada shaqeynayaan. Laakiin waxaan doonaynaa inaan xiriirna labadan. Laakiin labadan saan u xiriirin karnaa. Harkaana kuu sheegay meeshan ilaaca kaasaa jirta. Kaa waxaa jirta markaan xiriirina si asal ah kaas ama kan baan isticmaali doonaa. Laakiin kan baan isticmaali inta badan. Laakiin maanta uma baahni inaan labadan kan u isticmaalo. Kan baa jirta oo loo isticmaalo. Kanay console ahaan. Console-ka intaan qaado ayaan halkan ku dhufan doonaa. Saan idin sheegay switch wuxuu leeyahay 24 port. Portku waxa weeye oo meesha xariga aan gelino oo waxaan gelinaa xarig la yiraahdo Cat5 ama Cat6 oo ah ayaa jirta. Waxaa kaloo jirta oo la geliyay intaas buu leeyahay. Wuxuu leeyahay 1 2 kow ilaa 24 buu leeyahay. Waxaa kaloo leeyahay gigabit wuxuu leeyahay internet buu leeyahay 1 and 2. Hadda switchka qaarkood waxaa jira qaar leh kow ilaa 48 leh baa jira. Marka inaku haddaan kan isticmaalno console-ka isticmaalayno console-ka saad ogeydeen halkan maxaa ku qoran console baa ku qoran. Console ku qoran tahay markaan isku xidhayno internet kuma xidhayno laakiin console-ka ku qoran doona halka sare console. Markaan console ku dhufto halkaas siin doonaa. Halkan ma dul iman doonaa halkaas ku dhufan. Markii halkaa ku dhufto intaasoo dhibis afartaa qodob buu siiyey. Kan markaan switchka ku xidhayo switchka labadaas ku xidhay kan iyo kan isku xidhayo labadaasaan isku xidhaa. Laakiin hadda waxaan samayn doonaa since aan isticmaalayo console-ka isticmaalayo kanna ku xidhmaya kanna ku xidhmaya kanna ku xidhmaya taasaan ku xidhi doonaa. Kaa la yidhaha RS la yidhaha markaasa 130 230 iyo laba la yidhaha. Hadda labadan waxaan samayn doonaa kan waxaan doonayaa kan galo sidaan xarigan u sameeyey kan marka uma baahni kan baan gali doonaa oo halkan ka isticmaali doonaa. Kan baan u baahan inaan isticmaalo qasidkaygu waa kan inaan isticmaalo laakiin kan baan ku dhufan. Kan baan ku dhufto shaashadaas ay soo baxday. Shaashadaas markay soo baxday waad yarayn kartaa oo halkaasaad samayn kartaa. Intaad qaadid ayaa saa u yarayn kartaa. Saasaad u yarayn kartaa doonaysid. Haddaad doontiisa ku daynaysaa. Haddaad doonaysid inuu kaa dhaqdhaqaaqin kaasaad ku dhufan kartaa. Markaa si kasta u dhaqaajid toobku kuu joogi doonaa. Kaas hadda uma baahnin balse maan hadda samayn doonaa. Aan ka yareeyo. Halka inagoo joogno hadda waxaan doona baahanahay qaybtan baa jirta oo physical ah sidaad arkaysaan. Waxaa jirta configuration baa jirta oo qaybtan ah. oo hadhow la isticmaali doono gateway-kii DNS-kii status la siinayo DNS la siinayo waxaan baran doonaa
display name computerka magaciisa oo halkana PC ah, internet fast waxaasoo dhan ma jiraan waan baran doonaa. Laakiin qasadkeenu waxa weeye inaan kan baan u baahanahay desktop markaan ku dhufto shaashadna baa isoo baxday. Shaashadda hadhowtoona waxaan ka isticmaali doonaa qaybo badan. Hadda maanta kan baan isticmaali doonaa, kan baan isticmaali doonaa, waxaan isticmaali doonaa, waxaan kaloo isticmaali doonaa allahumma salli ala waxaan isticmaali doonaa, kan baan isticmaali doonaa, kan waan isticmaali doonaa. Adu qaar kan baan kan baan isticmaali doonaa, qaar baan ka isticmaali doonaa halka haddii alla idmo. Aan gaadhno markaan halkaa gaadhno. Laakiin hadda kan baan u socdaa. Qasadkeygu waa kan. Kan haddaan ku dhufto shaashaddan baa isoo baxday. Shaashaddan markay soo baxday haddana okay baan sii odhan doonaa. Hadda marka qoraalkan aad arkaysid id waa kan weeyaan. taas weeyaan. Haddaba qoraalkan aad arkaysid informationkan waxay ku caddaynaysaa kan buu yahay. Haddaad inta siiyo calaamadda baa soo baxda oo switch ah. Markii hore magacaanaa bedelay laakiin switch baa ku qorneed. Haddaba calaamadda waxaan doonayaa halkan baan doonayaa calaamaddan inaan kasii gudbo. Laakiin saan ugu gudbo haddaan waxbana ka aqoon had iyo jeer waxaa la weydiiyaa calaamadda ku qor question mark. Haddaan question mark ku qoro waxa ay soo bixi doontaa waxaasoo dhan baa soo bixi doona. Waxa qaar baan hadda ka isticmaali doonaa. Ka ugu horeeya ka isticmaali doono waa kelmadda enable ah. Haddaan enable haan ku qoro enable waan wal qori karaa. Sensitive maaha inta badan haddaad ka upper case iyo lower case ku qortid wuu qaataa. Laakiin waxaan ka jecelahay lower case baan ka dhigi doonaa. Haddaan qoro enable sidaa u qoro enable haddaan qoro enter siiyo wuu ka bixi doonaa. Laakiin sometime haddaad diidan tahay inaad wax oo dhan qortid haddaad qorto en clear qortid laakiin calaamad waxaa jirta meel tab la yidhaha oo baalka desktopkeena ama laptopka keyboardka ku qoran tahay. Tabku waxay ka sarreysaa meeshan cab ay ku qoran tahay. Kabku meeshan xarfaha laga weynaysiiyo ama xarfaha laga yaraysiiyo waa ta ka sarreysa oo tab baa la yidhaha. Laba cidhif bay laba calaamad bay leedahay labada cidhif kala eegaya. Haddaan taabto hadda halkaa en kaliya ku qoray waxaan u baahanahay inaan kelmaddan qoraan u baahana enable. Laakiin en kaliyan qoray haddaan markaa taab raaciyo haddaan taabto wakaa uu dhammaystiray. Waa ay dhammaystiray. Marka haddaan inta siiyo hadda waan ku jiraa. Halkan baan u baahanahay. Halkan markaan u baahanahay kan waxbaa laga bedeli karaa. Laakiin kan wax kama bedeli karo. Marka halkan joogo waxaan doonayaa saacadda aan wax ka bedelo. Halkan saacad kuma arkayo. Marka saacadda waxaa jirta hadda haddaan question mark siiyo. Markaad wixii garanayn ee halkaa joogtid had iyo jeer waxa u fiican question mark sii. Markaad question mark siid waxaasoo dhan buu ku siiyey. Waxaasoo dhan buu ku siiyey weliba in kale ku sii hoos qortoon. Saan intaa u dhaafno haddaad space siisid wixii oo dhan kuu dhammaystiray. Hadda waxaan doonayaa inaan saacadda aan bedelo. Laakiin intaan saacadda bedelin waxaan doonayaa saacaddii hore ku jirtay waa waqtigii weeyaan. Laakiin markaa inaan ogaado doonayo markastoo wax doonaysa inaad kan ku ogaatid show baa la yidhaha show itus. Showna halkan bay ku qoran tahay ku tuso. Waa tan show baad qori doontaa sh haddaad qortid sh oo taabatid taab waa aniga kuu sheegay meeshan xarfaha laga weynay laga yarayo ayay ka sarreysaa. Marka uu kuu dhammaystiray. Laakiin waxaan kala raacin doonaa kelmaddan clock ayaan raacin doonaa. Haddaan clock aan qoro clo qoro oon haddana taab marka uu dhammaystiray. Marka haddaan inta siiyo halkan waxa ii soo baxday saacaddan baa ii soo baxday. Waxaa qoran waxa weeye waa maalin Isniin ah bishuna tahay bishii 3aad March ah maalintuna tahay kow tahay sanadkuna waa 1993. Waxaan doonayaa inaan kan bedelo oon ka dhigo sanad kale aan ku jirna ka dhigno. Laakiin saan u bedeli karaa waxaan samayn doonaa clock baan qori doonaa clo taab baan odhan karaa ama waan dhammaystiri karaa clock. Markaan kaa qoro waxa ku xiga ma naqaani. Waxaan saari doonaa question mark calaamadda question mark. Markaan question mark siiyey wuxuu siiyey waxa ku xigta uri set baa ku xigta. Set waxay tahay set the time and the date. Timekii date ku qor weeyaan. Marka set baan qori doonaa set waxa ku xiga ma aqaani. Marka question mark baa hadda raacin doonaa. Haddaan question mark raaciyo wuxuu siiyey hourkii ku qor buu yiri minutekii ku qor buu yiri iyo secondkii ku qor. Marka waxaan samayn doonaa hadda waxa ay tahay 7 habeenimo 7 ku qori doonaa. Waxaan raacin doonaa laba eber baan raacin doonaa waa 7 o'clock. Second kale ma aqaaniya 00 aan ku qori doonaa. Waa sidaas. Hadda wixii ku xiga ma haddaan inta siiyo iga qaadan maayo. Laakiin waxaan samayn doonaa question mark baan ku qori doonaa question mark. Markaan question mark ku qoro waxa ii soo baxday kan baa ii soo baxday. Wuxuu igu yiri bishii waxa ku jira 1 ilaa 30 maalmood. Marka intaa mid u dhaxaysa gal igu yiri. Marka hadda waxaan joogaa 14 joogaa maalintii 14aad bisha dhexdeeda. Marka 14 baan qori doonaa. Markaan 14 qoro space baan hadda siin doonaa.
markaan space siiyo haddana calaamadda question mark baan taaban doonaa markaan question mark taabto waxaa ii soo baxday bisha geli buu yiri monthkii sanadkii waxaa ku jirta 12 bilood marka bishan hadda joogo waa bishii 12aad bisha 12aad waxaan qori doonaa DEC baan qori doonaa DCE markaan qoray December buu taagan tahay marka space baan siin doonaa haddana question mark baan qori doonaa markaan question mark qoray waxaa ii soo baxay sanadkii geli buu yiri sanadkii marka la bilaabo kan weyn ilaa intaasaa baalka systemka ku qoran marka waxaan samayn doonaa sanadkaa ku qori waxaan ku jirnaa 2024 hadda sidaasaan ku dhamaystiray saacadda markaad bedelaysid intaasaan u baahanaa inaad ku qortid haddaad garanaysid toos baad ugu qori doontaa oo processkana hadda mari maysid haddaadan garanayn had iyo jeer question mark ku qor markaas saasaad u raaci doontaa marka haddaan inta siiyo hadda waa kawan bedelay saacaddii haddii uuna qaado wuxuu odhan lahaa invalid input ku odhan lahaa marka waxaan samayn doonaa saacaddii hore markaan eegnay idhi show clock aan idhi wuxuu siiyey monday isniin bisha saddexaad kowdeeda 1993 laakiin inaguna kamaan ku qornay kan markaan ku qornay waxaan samayn doonaa hadda itus baan odhan doonaa waxaan odhan doonaa show clock baan odhan doonaa oon wala qori karaa or waxaan samayn karaa waxaa jirta keyboardkeena wuxuu leeyahay 4 qaybood buu leeyahay 4taa qaybood buu leeyahay calaamad kor eegaysa calaamad hoos eegaysa iyo labada cirif kala eegaya haddaan kor aan ku dhufto waa wixii aan qoray clock weeyaan haddaan ku sii celiyo waxa weeye clock show halkaas haddaan inta siiyo ka maaragtay waa kan saacaddii aan ku qornay waxay ahayd 7dii bay ahayd waxay u qaadatay 40 markaa weli saacadu ay socotaa marka waan ku qoray kii horena intan buu ahaa sida tii kooyay hore saasuu ahaa laakiin kii aan gelina waa kaas marka hadda waxaan isku dayi doonaa inaan magaca switch baa ku qoran inaan switch ka bedelno oon magacan maxamed u bixino ama aan s1 u bixino sidaa ku habboon laakiin hadda magaca si loo bedela haddeedan aqoon waxa kugu horeysa madaxa kusoo dhacaya waxaad taabataa question mark taabo markaa question mark qoratid intan oo dhan baa kugu soo baxday ma garata marka intan oo dhan kugu soo baxday waxaa jirta weliba ka badan spacey wixii oo dhan waa kuwan laakiin markaan magaca bedelayno inaan halkan ku jirno waxaan ku jirno aan ka baxno oo configuration mode galno weyn configuration mode waxaa loo galaa waxaan u baahanahay kelmadan oo ah configuration taas ayaan u baahanahay taasaan ku qori doonaa taa waxaan samayn karnaa waan wala qori karnaa haddaad doonaysid haddaad doonto waxaad qorantaa con haddaan taab siiyo igama qaadan laakiin because waxaa jirta 2 nooc baa jirta oo conn ayaa jirta ka laakiin waxa configuration aan qorano f aan raacin doonaa haddaan f raaciyo haddana taab markaa taabto wuu ii dhamaystiray waxaa kaloo u baahannahay kan baan u baahannahay terminal configuration mode terminal haddaan idhaa t haddaan t qoro oon taabto wuu ii dhamaystiri doonaa inter baan odhan karaa or waxaan kaloo samayn karaa intaan conf idhaa ayaan t-na taaban doonaa markaa waxaan odhan doonaa taab ayaan taaban doonaa wuu ii dhamaystiray inter baan siin doonaa markaan intasaa u siiyo markaan inta siiyo hadda waan ku jiraa configuration mode hadda magacaan bedeli karaa laakiin magacii sida loo bedelayo sida waxa ka horeeya ma aqaan dad wixii ka aqoon calaamadda question mark mar laba taabo markaad question mark taabatid marka waxaan oo dhan baa kugu soo baxday marka magaca markaad bedelaysid waxaan u baahannahay kelmaddan oo ah halka waxay ku qoran system network name markaan magaca bedelayno kan baan u baahannahay host name waxaad samayn kartaa waad kubiyin kartaa haddaad doonaysid intaad right click u dhufatid ayaad kubiyin kartaa oo haddaad doonaysid waad qori kartaa waxaad qoran kartaa HOS baad qoran kartaa intan taab baad taaban kartaa sidaa kuu dhamaystiri doona or haddaad doonaysid inaad baratid spelling waxaa qorba SOST name markaad kaa qortid saasaad u qortay haddaba magacaad doonaysa spacey magacaad doonaysa ku qoraysaa markaad magacaad doonaysa ku qoraysid haddaba halkan oo kale waxaan ku qornay maxamed markaa maxamed baan ku qori doonaa maxamed hadda sidaad ogtihiin sidan bay tahay switch laakiin markaad inter siiyo wax magacaas bedeli doona xagga switch wuxuu isku bedeli doonaa maxamed hadda waka maxamed uu isku dalay markaasaan hadda haddaan doonayo inaan saacaddii ogaado oo idhaa haddaan idhaa show clock haddaan idhaa ii shaqayn maayo because waxaan ku jiraa configuration mode baan ku jiraa haddaan hadda inta siiyo wuxuu odhan doonaa invalid input because waxaan ku jirnaa configuration mode baan ku jirnaa markaa ma shaqaynay laakiin haddaan saacadda ogaad doonaysid iyaa dhowtoole waxaan ka shaqayn doona markaan ib-ga siino ib address siino markaan aan siino oon kan ku jirno inaan ka baxno diidanahay waxaa jirta wax laga horreysiiyo waxaan oranaysaa do
markaad doonaysid configuration ma ku jirtid had iyo jeer waxaad ku horeysiisaa do marka do show itus clock baan odhan doonaa do show a clock hadda inta siiyo hadda markii hore waad iga diidanaa inuu qaato because do kamaan horeysiin laakiin hadda do baan ka horeysiiyey marka wuxuu siiyey saacaddii buu siiyey oon geliyey markaa saacaddii weli way socotaa inta hadda waxaa kasoo wareegtay 4 minute baa kasoo wareegtay sidaan intan hadda u sameeyey magaratay marka qaybtaas weeyaan waxaa kaloo jirta waan safe garayn doonaa marka la safe garanayo waxaan u baahan lahay halkan bay ku qoran tahay haddaanan garanayn macalaa question mark haddaad siisid wuu ku siin doonaa marka question mark siisid halkan buu kugu qori doonaa wax oo dhanba waad eegaysaa copy baad ku arki doontaa halkan wuxuu sheegay copy halkan okay copy bad waxaan doonayay halkan intaan kaa safe garayn 3 qaybood baa jirta oo halkan haddaan inaan ka baxo doonayo si aan uga bixi karaa 3 qiyaabood baa jirta looga baxo haddaana ext da waan ka baxayaa oo waxaan ku laaban doonaa beginning markii ugu horreysay ee ahayd sidan baan ku laaban doonaa sidaasaan ku laaban doonaa markaan ku qoro exit weyn oo waxaa kaloo jirta waxaan samayn karaa haddaan qoro end and waxaan ku laaban halkii ugu horta ku laaban doonaa oo haddaan taabto ctr haddaan taabto aan kaa hayo keyboardkeena oon sedna raaciyo sedna taabto wuxuu ku laaban doonaa halkaa hadda waxaan samayn doonaa en baan odhan doonaa marka en ilaa wuxuu ku laabtay halkaasuu ku laabtay laakiin waxay hadda aan sameeyo oo dhan markaan seefinayo waxaa la idhaa copy haddaan siiyo oo aan qoro magaranaysaa oon taab siiyo imasin haddaan b raaciyo waa ii dhamaystiray copy start waxaa jirta start haddaad sta qortid oo taa taabatid wuu ku raaciyey start configuration saasaa u safe garayn kartaa oo waxaad odhan kartaa kale waxaa kaloo odhan kartaa right baa odhan kartaa re and then me taa baad odhan kartaa marka uuna kuu safe garayn karaa saas lafteeda memory ka wax kastoo dhan kuu safe gareeyey waxaad odhan kartaa cop tab and sta tab copy start configuration danta saan uu safe gareeyey sidaas hadda wuxuu yidhi incomplete marka waxaan samayn doonaa copy intaad tahay copy tab start and then start kale copy start okay igama qaadan kan marka waxaan samayn doonaa waan raadin doonaa laakiin hadda waxaan samayn doonaa markaad seefinaysid hadda waxaad samaysaa ku daysaa right memory right memory trade ka wax kastoo dhan kuu seefiyey marka sidaasaan cashirkiina ku dayn doonaa insha allah marka insha allah waan kasii wada doonaa haddii alla idmo ayo walaal allah waxaan rajaynayaa inaan waxaa jira book 3 book baa jira 3daa bookina insha allah oo mid kastoo 12 laab leeyahay marka kaasaan aan ka bilaabi doonaa sida ugu hooseysa ilaa kor baan socon doonaa haddii alla idmo waxaa kaloo raacin doonaa haddii alla nafta nagu simo operating system sida windowska aan installno iyo windows server iyo window client iyo waxaa kaloo isku dayi doonaa inaan isagana aan ka barano the linuxka oo ah ubuntu iyo kali iyo some of the linuxkana inaan soo installno oo some of the haddii alla nafta nagu simo waayo walaal insha allah jazaakum allah khayran asalaamu calaykum